marka suuqan ayadoo maxaa la dhahaa ii sheeg loo isku diyaarinin baabadana annaka ani ahaanteeda baan lacag gashanaa markaasay suuqii khasaaro sida adiga waagii hore adiga iyo Sad Axmed iyo dhammaantiina aad samayn jirteen marka dad cusub baa qolkan ku jiro waxay rabaan experience-kiina adiga Sad Axmed iyo ragga kale nala joogo maasha Allah wallahi horta dhamaan way salaam asxaabta dhamaan meel walba joogtaan marka koowaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin in la caawinayo marka kulli barnaamijka shakuran wadadeenayo wixii oo suuqan ku saabsan Axmedna waa joogaa waxaa ka hadli doonaa marka wajiyadiisa qofka marka uu insha Allah suuqan imaado wuxuu horta sidiisa suuqan wuxuu yahay inuu fahmo and then from there inaan kasii qaadno su'aasha ka adag tahay emotion suuqan leeyahay dareemaha khaaska ah walwalka iyo sidii looga bixi lahaa ugu dambeyn saasaan is leeyahay marka xagee ka bilaabnaa su'aal iyo jawaab waa ka dhigi karnaa barnaamijka hadduu ilaa yaraado wax yar waa iska hadli karaa haddaa u baahantiin qasaaradan soo maray waa ka hadli karaa dee dadka wax ka anfacayso sidaa jeceshahay bal ku bilaaw kabacdi hadday su'aalo jiraan su'aalaha lagaa weydiinaya marka la horta dhammaantiin waa idin salaamay assalaamu calaykum dhammaan soo dhawaada magacayga waxaa la dhahaa Cabdiraxmaan Maxamed qaarado badan oo ku noolahay oo kala duwan waxaan tirar gareeyaa lacagaha poundka iyo Japanka lacagtiisa iyo dahabka iyo dollarka cryptona waxaan ka ahay investor suuqyadan dhowr sano ka hor ay imaaday and then sida caadada ahayd waxa ku soo galay nin ordayo dhahay niyo 80% waxaan ku keeni karaa lacag haye marka see lagu keenayaa horta 10,000 keenana bishii 8,000 ku keenayo adiga 10,000 isku soo aadi here and there lacagtii week kadib waxay bilowday in ay boortii kala dhacdo and then waxay qaadatay wax 3 week wax saaslan inay gubato kadib emotion wax la dhahaa bilowday oo ah qofka markuu lacag intaas leeg khasaaro waxaa ku furmaya buuq maskixiyan iska habo waxaasay u khasaartay ku dhacday sidaan markaas ma raadinaya waxa dhacay oo intuu meel fariisto ma dhahay okay inuu business kala shay hadaa business ka shayna marka ani business ma galin waaska iska ordaya leh moqto laakiin sida caadada hadda taa kala qofkii business leh oo background-kaygana sorry wuxuu ahaa entrepreneur business aan lahaa ilaa hadda waa leeyahay business-yadaas laakiin waa iga hoos baxday runta markaan sheego waa iga hoos baxday and then kadib Axmed aan fasax meel iskugu imaanay waxaan dhahnayo baashan meeshaan u socotay xagee meeshaas marka macna Axmed aas kala jaan qaadnay and then qasaaro kala badan waa dhacday here and there adi wadada waxaan ku soo dhacnay sanadii barkoor wadada saxda alxamdulillah waxbarashada saxda la helay and then waxa la bilaabay suuq in lacag la sameeyo and then hadda dhawaa waxa bilaawtay marka in la gaarsiiyo war dadka si wax loo gaarsiin karo marka aniga safarkayga safar wuxuu ahaa bilawgiisa hor xanuun ah dhexda wuxuu ka ahaa risk management because maadaama entrepreneur ah gadaalna isku celiyo anda okay yani wax dhici kara ma inaad suuq iska soo gashid oo lacag accounts kaga shubatid oo lacag aan sameynaa yani wax dhici kara ma shaqadan aan hadda leeyahay 18 sano ku dhex jir waqti qaadanay profit ka gadaal oo keenana so taas wixii ii sheegtay in khiyaaliga aan mataqaana meel iska dhigo oo waxbarasho raadiyo marka la okay waxbarasho marka hadda waxa dhacday inta badan hadda waxbarashada anaga dadkeena
Soomaalida waxay ku raadiyaan wax yar oo raqiis ah runta markii la sheego dad badan waa laga yaabaa inay dhaqaalaha inay wajhi sax u tahay oo xaq u leeyihiin inay wax raqiis ah ku raadiyaan laakiin waxbarashadaas oo lacagta yar lagu raadiyay ma mar qaarkiis waxay dhashaa qofka inuusan focus sameynin uusan focus gareenin oo si fiican wax u focus gareen adiga iskuulo badan mar inta ka soo dhaca adiga alxamdulillah mar baan tunnel kanalka ku baxaya soo waxaan ka qoray 4 qodob Soomaaliyeed qolkeen AJ marka hadlay qodobada wajiyada suuqa qofka u marayo oo marka koowaad iska tahay social media clubhouse ka waxa ku haysan ana caaway gooraysa clubhouse barasho wanaagsan kuligi clubhouse wax lagu hay telegramyada iyo sheekadaas waa social media sheekada sheekadaas badanaa waxay u badan tahay oo ninkan lacag sameeyay intaan percentage sameeyay intaan qasaare badanaa isma dhaho intaan qasaare laakiin waxa la dhahaa 100% faa'iido 50% reality laakiin markii la tago waa ka soo gudbaysa social media reality ma reality-gaas waa ka soo dhaxbaysa banaanka imaanaysa way ogtahay ninkii ay Fuad maalin dhaweyto markii aan subaxdii live trading sameynayna maxuuda 2 sano aan meel ku jira been isku sheegayna anoo gruuba been had subax walba soo kaana been isku sheegnaa waa kala tagnaa qaybta social media qaybtaas waa ka soo gudbaysa marka hadii runka tahay hawshan hadii runka tahay oo rabtina wax baratid qaybtaas waa ka soo gudbay qayb waxa imaanaysa oo waxbarasho sax raadinaysid oo waxbarashadaas ku ka tahay ina xilli ogolaatid oo aan qaadatid xilli waxaan siisid dhayd okay sanad 2 sano 3 sano goolkaaga muxuu yahay goolkaaga qoran yahay riskaaga qoran yahay iyadaas ku kala baxayso iyada markii ku kala baxdo wajiyada saddexaad u gudbaysa hadii aad joogtid 7 bilood wajiyada labaad oo aad wax faantid wajiyada saddexaad waa meesha marka suuq saxda imaanaysid oo waxa saxda ka hadlayso beento gadaal ugu soo tagaysid ma fahanto markaas waxa ka dhamaanaya emotionka ka dhamaanaya dareemaha iyo qof haduu ku dhaw waxaan lacag ma sameeyay was the end of the day adiga inta qol isku soo xirtaa waxa leedahay horta waxaan lacag ma ka sameeyay mise ma ka sameeyay adaan isoo jawaabtaasna adila siinay marka safarkaas dheer marka wajiyada afraad waa wajiyada lacag sameeyay maalin walba lacag without problem adoo stressaynin ma fahanto alxamdulillah lacag hayraat ama badnaat laakiin nidaamada ku shaqeynaa nidaamkaas lacag u sameeyaa haduu qasaare keenana waa la manage gareeyaa marka dhammaan dadka raba suuqa inay soo galaan oo rabaan inay maanta bilaabaan ama ku soo jira sanad 2 sano waxay tahay intuu meel fariisto isweydiiyo okay wajiga maraya wajiga beenta ma wali ku jira beenti ma ka soo baxay wax ma bartay wajiga discipline laga rabay in aan discipline iyo plan la imaado business marka furanaysid business marka sidiisa furaysid dukaan yara furaysaa waxa bilaabaysaa inaad business plan qortid wax la dhaho business plan okay dukaankan aan gadaaya sonkor iyo caano ku gadaaya caana adiga dhammaan sonkorta dib aan u ceshanaya ilaa caana kala ka keeno andan plan qoranaysa waxba qoranaysa andan waqti siinaysa waqti qaadanaysa and then waqtigaas markii qaadato markaas kadib markii improvement imaanaya expansion waxa la doonayaa weynaysid ama marka hore business plan kuma qorno dukaana iska furaysa iyadoona waxba ku qorneen qasaarada kiradaada waxba adoona ka aqoonin businesska abilaabaysa and then laga yaabaa inay ku hagaagto weelandan hadii ku hagaagto waa meesha qofka entrepreneurka ka bilaabmay noloshiisa oo dhacaya and then 10 sano kadib wax ka shaqeynaya haduu adkaysan waayo waxa dhacda markii uu shaqadiisa caadiga ku noqdo oo dhawrahan business kala wax adag waan kama bixi karaan qofka kale dukaankiisa furaya wixii isku aadisanaya alxamdulillah sidoo adkaysanaya mar baan nalka u furqu daarmaya nalkaas markuu daarmana wuxuu sameeynaya horumarka
marka storygeyga yarka ah oo qasaaraha haddaan taabto 20,000 iyo plus suuqan iga qasaartay xilligaas alxamdulillah waa kabsaday nolosha hadda way socotaa maalin walba dada waa trade garana everyday waa soo fariisanaa life all aan leeyahay waa trade garana life on trade marka dhammaantiin soo dhawaad wixii su'aal qaba oo shuruud number 1 markii aad xishootaan horumar ma gaaraysaa waa ina aqbashaan reality-ga oo su'aashii ka adagtahay weydiisaan ana jawaabtii ka adagtahay insiinay Ustaad Cabdiraxmaan waa mahadsan tahay linkiga kor saaran waa linkiga Ustaad Cabdiraxmaan subax walbo early markii 2 saac subaxnimo Soomaali u tahay aan filayaa inuu live soo galo trade sameeyo si live marka qofkii rabo qolkaas uu gali karaa subax waa wax badan oo ka faa'iido marka ustaadi waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekadii Fahad maalintii nooga sheekeynaa been isku sheega qofkii inuu been isku sheego naftiina been u sheego dadkana been u sheego arinta waa iga khusuusiyay marka hadda markaan ku soo celisay waxaan aniga xataa arinta maxaa ku kalifay qofkii inuu been isku sheego maxaa kalifay very good question maxaa kalifay qofka been inuu isku sheego suuqa wuxuu leeyahay hype mataqaanaa aad u adag oo qofka markuu soo galo focuskiisa u badan wuxuu saaran yahay wajihadiisa u badan kandaladan socda and the mindset wuxuu wataa qamaar ah oo dhaqso been inuu lacag sameeyo dhammaantiin qolka dadku ku jira xanuun waa inaan idin sheego runta oo ah qof dhaqso lacag ku sameynaya ma jiro ama jeclaada ama jeclaanina waxay u baahan tahay lacagta process inaad baratid processkaas maalin walba samaysid isku si u samaysid isku xilli samaysid resultigaas wuxuu qaadanayaa safarkaas kadib laakiin waxaa kuu garanti garanaya inaad lacag samaynaysid garanti wayd taas macna axmed joogo weydiin kartaa wax oo maahan oo laga qarinayo marka beenta waxaa keenaysa qofka dhaqso lacag raba su'aasha ugu badan oo la weydiiyo qolka Soomaaliga meeqa lacag ku samayn karaa meeqa ku baran karaa meeqa san ku samayn karaa lacag kuma helaysa sanad iyo 5 bilood iyo kuma helaysa lacagta ka hadlayna waxa way lacag fiican $5 $10 kama hadlaa lacag fiican u baahan tahay waa in go'aanka ka soo go'a horta inaad wax baratid waqti siisid dulqaad samaysid yani qof arkaysa 5 sano jaamacad aaday oo inuu meel shaqaale ka noqdo £2,000 qaato ama $2,000 ama $1,300 qaato laakiin wuxuu waxaas u soo bartay 4-5 sano u dulqaadanay so waxay leedahay marka suuq adduunka u weyn oo ninku ka smart san yahay suud u soo xirto oo algorithm ku socda aanan waxba baran intaas ka imaado lacag sameynaya يعني that's just bullshit wax ka jira marwaxas ana ku soo jabay taas wadadaas ana ku soo jabay oo shaqeyn weysay marka hype-kaas waa dadka lacag number biggest problem anaga haysta waxaana keenay dalkeena dhibaatada ka dhacday lacagta value badan inoo leedahay qiimo badan lacagta inoo leedahay sidaas darteeda dadku waxay rabaan in ay dhaqso lacag helaan whether in crypto joogaan iyo whether in joogaan suuqyada lacagaha ama dahabka meesha rad suuqan ka joog suuq wax ama crypto joog ama stock market ka joog ama waxa joogtaa currency-ga lacagaha ama waxa joogtaa commodities-ka dahabka silverka suuqa isku sii u socda nidaam ku socda meesha rabta adiga ka gal suuqa laakiin waa inaad nidaam ku gashid hadda haari ku gashid iyo orod ugu soo baxaysaa